arrimaha doorashooyinka heer federaal mudana madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaan ku dhownahay xilligii aynu qaban lahayn doorashooyinkii heer federaal oo noo madlanaa si aynu u fulino ballanqaadkii aynu qaadnay 2016 dhammaadkiisii oo ahaa inaynu qabanno doorasho qof iyo cod ah kalfadhigan lixaad waxaynu ansixinay sharcigii doorashooyinka qaranka ee heer federaal waxaa inoo qorshaysan in aynu ansixinno kalfadhiga toddobaad sharciga qabiyatirka sharciga doorashooyinka oo aan u bixinay oo aan u xilsaanay guddi wadajira oo ka kooban labada aqal waxaa iyana aan ku tala jirnaa in aynu meel marino sharcigii wax ka beddelka sharciga axsaabta siyaasadda qabashada doorashooyin heer qaran waxaa lagama maarmaan in wadatashi degdeg ah ay isugu yimaadaan dhammaan xukuumadda federaalka baarlamaanka federaalka dowladaha xubinta ka dowladda federaalka iyo daneeyayaasha siyaasadda si loo helo qaab raalli la isaga yahay oo doorashada lagu galo waxaan filayaa in baarlamaanku isu xil saari doono doorka isu keenidda dhammaan qaybaha kala duwan ee aan looga maarmayn qabashada doorashooyinka heer qaran dhismaha golaha aqalka sare dhismaha golaha adeega garsoorka mudanayaal iyo marwooyin mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin ugu dambeyn aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu ku adkeynayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya inay gudato doorka kaga aadan dhismaha golaha adeega garsoorka oo u soo gudbiyaan xubnaha ay soo sharaxaan kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si isaguna uga guddo doorka kaga aadan dhismaha golahaasi oo saldhig u noqon kara helitaanka garsoor madax bannaan oo ay ku jirto maxkamadda dastuurka oo iyadu u xilsaaran go'aanka gaarista khilaafaadka dastuuriga ah ee labada heer dowladood iyo arrimaha dastuurka oo dhan waxaa iyana lagama maarmaan doorashooyinka fooda inagu soo haya oo haddii ay dacwo ka timaado go'aanka gaaristeeda ay awood u leedahay garsoorka madax bannaan oo awood u leeyahay gabagabadii waxaan ugu baaqayaa xukuumadda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inay wadahadal ay ku dhameeyaan khilaafaadka u dhaxeeya iyagoo u turaya dadka Soomaaliyeed ee la daalaa-dhacaya cawaaqib xumada cudurkan COVID-19 fatahaadaha webiyada daadad ammaan la'aan iyo dhaqaale xumo aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhegaysi wanaagsan